munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Nadiifa Cali oo ay ka soo qayb galeen dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska ayaa waxa ay ka dhacday magaalada tan London. munaasabadaasi ayaa waxa lagu soo dhaweynayay ku biirista Aamina Muuse Weheliye ee ay ku biirtay telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada tan London, isla markaana lagu taageeray xilka agaasimanimo ee ay dhawaan wasaaradda warfaafinta u soo magacawday Aamina Muuse xafiiska warbaahinta qaranka ee UK. munaasabadaasi ayaa inta badan waxa looga hadlay soo dhaweynta Aamina Muuse iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed iyo telefishinka qaranka stuudiyihiisa magaalada tan London. sidoo kale waxaa halkaasi shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed lagu gudoonsiiyay shahaadooyin sharaf loogu talagalay, isla markaana ay u keeneen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska. ugu dambeyntiina agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee waaxda UK ayaa waxa ay halkaasi ugu mahadcelisay dhammaan jaaliyadii Soomaaliyeed ee halkaasi isugu timid. Aamina Muuse ayaa sidoo kale waxa ay halkaasi ka jeedisay ammaan iyo bogaadin oo ay u soo jeedinayso shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee maanta meesha jooga, marka hore waxa farxad weyn ah sida walaalaheen ay ii sharfeen oo iigu sharfeen munaasabadan oo ah mid qurux badan, isla markaana xitaa aan lama filaan camal igu ahayd oo markii la ii sheegay aan waqti aad u sii dheer la ii sheegin. waxaan halkan si gaar ah uga mahad celinayaa shaqaalaha telefishinka qaranka, gaar ahaan kuwa marxaladaha adag ku shaqeeya oo iminka sheegay oo nabadgelyo xumadu haysato oo walwalku haysto oo maanta lagu diri doona ama sabrito ay haysato ee naftood horeyaasha ah ee marxaladaha adag u babac dhigay. aad baan u mahad celinayaa. waxa kale oo mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta. TV-ga qaranku wuxuu qayb ka yahay warbaahinta qaranka. warbaahinta qarankuna waxay ka kooban tahay telefishinka, radio Muqdisho iyo wargeyska dalka. saddexdaas markii la isku daro waxa la yiraahdaa warbaahinta qaranka. marka inaga aadna arkaysaan ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ka tirsan, macnaheedu waxay tahay saddexdaas laamood waan ka tirsanaa oo waan u shaqeynaa. waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa wiilashii maamulka aniga hortay hayay telefishinka qaranka oo si ku meel gaar ah u hayay, labadoodaba si u cudur daartay caawa oo aan halkan joogin dana adduunyo daraadeed. waa Cabdirasaaq Socoto iyo Cabdirasaaq Kismaayo. waxaan rabaa inaan halkan munaasabada uga faa'iideysto caawa, maadaama aan soo sheegay telefishinka qaranku inay leeyihiin dadka Soomaaliyeed, inaan halkan kaga dhawaaqo bilaabida tub cusub oo wada shaqeyneed oo si toos ah u dhexmaraysa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool UK iyo telefishinka qaranka laanta UK. waxaan idin leeyahay ma ku soo koobi karo mahad celintiina halkan. waxaan si gaar ah u mahad celinayaa haweenka qaranka Soomaaliyeed oo maanta gogasha dhigay. Yusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.